inta aanan halkan u gelin shirkeenna iyo ujeedadiisa iyo furitaankiisa waxaan jeclahay inaan halkan ka diro baaq aan u dirayno mas-uuliyiinta galmudug in la joojiyo dagaalka ka socda magaalada Tawfiiq ee degmada Tawfiiq ee Puntland oo saaka halka uu ka bilowday weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka galmudug waxaan ugu baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo waxaan kaloo ugu baaqaynaa in laga shaqeeyo nabadda muddo laga soo shaqaynayay adkaynteeda iyo joogtaynteeda aad iyo aad baan uga xunnahay xilligan aynu maanta marayno in dadku weli ay u ceelqabaan in la adeegsado baabuur waaweyn oo la isu adeegsado oo dad ehela oo darisa iyo maamul darisa la isku laayo arrintaas waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo nabaddana laga shaqeeyo